geesta kalena intii lagu guda jiray munaasabadani lagu soo afmeerayo tababarka maalmihii ugu dambeeyay u socday hogaaminta sare ee xisbiga ayaa waxaa madaxweynaha deegaanka iyo gudoomiyaha xisbigu ay cadeeyeen in aanay jirin wax khilaaf oo u dhaxeeya hogaaminta hore iyo midda cusub ee xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya waxaana labada mas'uul ay tilmaameen in xisbigu uu yahay mid midaysan iyagoo geesta kala sheegay in xubinimada xisbigu ay tahay waajibaad qofka saaran xaalad kasta isla markaana aanay ku xidhnayn kaliya inta uu qofku shaqada hayo waana kuwan madaxweynaha deegaanka iyo gudoomiyaha xisbiga oo arrimahaasi ka hadlaya haddaba waa soo dejiyo gudaheeda qaar baa propaganda sameynaya been abuura in isku dhacyo ay jiraan hogaamintu kala qaybsanay wax ka jira ma jiro waa been marka hogaamin midaysan oo aragti midaysan ummadda ku hogaaminsan ummadana midnimo ku hogaaminsan nidaam xisbiyeed ku hogaaminsan guddoon dhexe xisbinimada ay yeelato waxa weeye waa arrimaha ugu muhiimsan in si buuxda loo hirgeliyo deegaanka looga baahan yahay taasna marka shaqooyinkaas in si buuxda loo hirgeliyo ugu muhiimsan arrinta dheesa hogaamintii hore hogaaminta cusub waa concept aad iyo aad u khaldan kala qaybinaya xooga xisbigana inuusan midoobin iyo taas in laga waantoobo looma hadoo qaadanayo qodobada noocaas oo kale waa qiimeyn la sameyn doono dadka waxaas ka shaqeynaya aragtidaas ama kala qaybsanaanta sameynaya waa mid qiimeyn aan ku cadeyn doono ay noqonaysaa wax farqi loo dhaxeeya markay noqoto jihada la qaadanayo hadda ma jiro waa yaraad taas maadaama la jiro in inagu ayna ku weynin dad fara badan oo meel ay cidhiidhiyaan raadinaya oo fara badan oo deedna u baahan in wixii kala fido niba meel uu galo bariis u helo inaan ku weynin baa muhiima si ballaaran baan uga wada hadalnay oo lagu xajoonay arrimihii maaragtay maalmaha ku jira suuqa oo dhan isfahan guud iyo qaabka maarka loo soconaya baan ka wada qaadanay idinkan saasaa idinka rabaa waayo haddaan inagu dhexdeeda qaybsanaano dee waxaa weeye waxba ma wadi karno haba yaraatee xoog fara badan oo wada gacanta ku helay banaanka way joogaan dad fara badan kalaa jira bulshooyin badan baa jira Soomaali dhexdeeda iyo Soomaali kuwaan ahaynba cadow badan baa jira marka haddaan cadowadaas oo dhan jira haddana inagu isku sii mashquulo oo isu dulqaadan weyno waa xitaa meelaha aragtida laga yaabo inuu kala duwan yahay isu keeni waayo laga wada hadli waayo si xataa ku jirto wareer baan gelayna marka waxaan u baahannahay inaan midnimo kala tagno meeshan dadkana aan midnimada u sheegno aadna aan loogu mashquulin qaab dhismeedkiisu noqonayaa kan taas aakhirka inta la isla yimaado baa laga xajooday sidii laga yeelay kaadmeyga waxaa ujeedadu tahay oo jihada xisbigu yahay in dad taya leh oo la tartami kara Itoobiya dhexdeeda tartan la geli kara oo aqoon leh oo bulshada ku kalsoon tahay ay xagga hoos u maraan xisbiga wax taa ka duwan oo aragtida ma jirto abeeraad si kastaba ahaatee hadalka labada mas'uul ayaa waxa uu noqonayaa mid soo afjaraya hadallo badan oo sheegaya in ay jirto kala qaybsanaan u dhaxaysa hogaaminta xisbiga dhexdiisa